insaanku dhibta tirada badan le uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab a la leeyay mooyaane saawgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qawlan thaqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطcan waaqwamu qiila wadkur isma rabbika bukratan okay ilaahay wuxuu leeyahay kan isduuduubayow kac ka isdadayow baa la yidhi kacoo ilaahay isu taag markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidhka lala ahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaa kugu dhacay marka koowaad aad mushkilada xaliil kare waxaad soconaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan aad tiraahdo warbal waxyaama hemo inaad wax ka weydiiyo inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiyaa waxa weeyaan rabu samaawaati walardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kullu shay ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco saawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortibay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila kanis dadayow kanis duuduubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa la yidhi waxaa lagu cileeyey inaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaa yidhi war culus baa lagu dhiibayaa dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo systemkan inaad qaadaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxaa kuu fuduudinaya waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay kulamaa xidhiidhkeenu rabbi la leenay uu daciifo isbedelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa markasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobayaa idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddaana daliil haysanin waad jabaysaa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisaa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aad faafisid